aad iyo aad baad marka ugu horraysa horta saxaafaddu kaalintii runtii laba ilaawaanka ah oo aad ka qaadateen aan idinka mahad celinaynaa mahadda iyo heerarkeedii iyo inta astaahishe iyo siday ahayd iyo cabdirasaaq baa ka warramay waxaan jeclahay inaan in yar dib ugu noqdo doorashadu intay jirtay keligaya maanaan ahayn waana loo yimid hay-ado caalami ah safiiro iyo saaxiibbo kale oo runtii iyo miidiyaha caalamka warbaahinta caalamka qaar badan oo ka mid ah intaba waxay aad iyo aad maaragtay ay wax noogu tareen sidii maantay hawshaan socoto oo runtii mahadda ugu weyn aan u jeedinaya dadweynaha si isu xilqaameen sidii maaragtay ay kalsoonida lahayd sidii sharafta lahayd oo dadku ay safafka ugu jiraan qorraxda iyo kulaylka ay ugu adkaysanayeen u dulqaadanayeen haddana ay codkooda ay dhibanayeen oo ku faraxsanayeen oo qofkii maanta oo dhan saf ku jiray oo daalanayo dhididka ka socda aad yaabaysid markuu codkiisa dhiibto isagoo faraxsan u baxayay taasna waa wax weyn aan la iloobi karinin safiiradii maanta yimidna waxaa ka mid ahaa safiirka switzerland iyo hay-adaha caalamiga ah oo arrimaha soomaaliya iyo qaabilsan ururada caalamiga ah oo aan xusi karo oo iyaguna ka shaqeeya arrimaha horumarinta dimuqraadiyadda iyo maaragtay in ay la socdaan waxaa ka mid ah macadka doorashooyinka iyo hanaqaadka dimuqraadiyadda oo hadda wakiiladoodii ay nala joogeen maanta ay goobaha nagu soo kormeereen dhinaca kale oo badayna ay tageen ilaa iyo qarxis meel aysan ku soo wareegin lama arko kulligaya saaxiibbadaas waxay markhaati nooga noqonayeen hawshaan aan wadno inay si xora oo xalaalo u dhacday innaguna aanu ku wada faraxsannahay ilaahay mahaddiis waxaan ku talagelaynaa haddii alla idmo inaan sugno uun saacadaha soo socda natiijadii iyadoo rasmi ah oo buuxdana wakhtigeeda ururka guddiga tibek uu si rasmi ugu dhawaaqi doono haddii alla idmo mar kale waxaan u mahad celinayaa saraakiisha iyo ciidamadii sida gaarka isaga xil saaray runtii oo aan la dhayirsan karin oo haddaad maanta runtii qofku goobjoog ahaan lahaa uu garan lahaa xaaladdu siday ahayd iyo quruxdeeda iyo dadku siday maaragtay ay safafka u gelayeen iyo sidii ay uga baxayeen iyo amnigii boqolkiiba boqol aan odhan karo wax naga xumaada ilaa iyo hadda ma jiro insha allah natiijaduna sidaasi si ka wanaagsan baan filaynaa inaan noogu soo baxdo